gaaray in maanta ay arrintu gacantiina ku soo noqoto oo aad noqotaan dad iyagu toodi ka tashanaya oo waxooda gacanta ku haysta aad waxaan u jeclaan lahaa in ay arrintaasu ay mar kale cid kale gacanteedii ka aadin si aydaan ugu noqon martidii ashaag ahaydeen oo ilaahay idinka qaaday Somali maanta alxamdulilah rabbil caalamiin dadku waxay ka dayrinayaan maamuladan faraha badan oo la sameeyey aniguse waxaan markaan dib isugu noqday fikradayga dib u baaray waxaan isiri armayba sahlan tahayba in cid walba intay isu tagto isu ururiso ay madax lala hadli karo oo berri la isu keeni karo inay yeelato armayba ka hagaagsan tahay in nin walba qorigiisa qaato meesha doono ka baxo wuxuu doono sameeyo marka arrintan alla yaabina maamuladan faraha badan cid walba waxaa khusaysan maanta danteeda khaaska iyo meesha ay joogto dhibaatada ku haysata inay iyadu iska xalliso iyadu wax qabsato marka waxaan idiin sheegayaa dadka ay arrinta qaatuba ku khusayso arrinta maanta ilaahay intuu idiin soo celiyey dadkii aad wax badan tabayseen mutacalimiintiinii kuwii aqoontiinii wadaadkiinii shiiqiinii mid walba hadduu maanta inta idinku soo noqday geed hoosti idinla fadhiistay dadka shicibkaana haddaan dee idinku aydaan noqonin awooddii dadka ashkhaasaasi awood ma laha marka waa inaad la shaqaysaan oo aad arrinta aad u soo dhawaysaan oo aad dadkiina dibadda jooga khaasatan waxaa layna ku tiriyaa dadkeena dibadda jooga markasta inaynu ka shaqayno dhibka dadka gudaha jooga waa inay arrintaas aynu tirtirno oo ay noqoto inaynu ka shaqayno wanaagga gudihii jira inaynu ka shaqayno intii laynu ku tilmaamay hadda dhibaato ka shaqeeya marka waxaan intaa kaga baxayaa marka intaa hadalka waa laygu haysta waxaan kaga baxayaa intaa arrintaas iyay dib u noqon in halka ay maanta maraysaa laga sii wado waxaan rabaa marka inaan kelimad idhaahdo dadka jiiraanka iyaga waxa weeye Puntland haddaan matalan taabto Puntland waxa weeye waa dad walaalahaya kamaanaan bixin markii uu dhulbahante uu Puntland wax ka noqon waayey gudihiisana wax ka noqon waayey baan tala isugu nimid waxaanu isniri war arma dib isugu noqoto ay soo habaysano idinkoo wax ah ama Puntland ku biirtaan ama cirka ku biirtaan ama meel idinkeediiba gooni isu taagtaan marka arrinta lagu keenay marka marka hadda alxamdulilah rabbil caalamiin aad waxaan u rajeynayaa annagoo wax ah inaan Puntland u tagno walaalahaya ama Soomaaliya u tagno dowladda Soomaaliya weyn aadno sidii ragga hore ay sheegeenna dee waxa baan raadinaa waa Soomaaliya weyn marka cidna kama aanan tegin walaalkay halkii uu noo joogaa intaa markaan kaga baxo waxaan u gudbayaa deriska iyaga kale ee Soomaaliland kelimad baa nagaga filan kelimadda nagaga filan waxa weeye walaalahayo waxaanu rajaynaynaa waxa aanu doonayna inay nala doonaan wanaag baanu doonaynaa inay wanaag nala doonaan sababtu waxa weeye ninkii shalay markii ingiriisku naga tegey ee gobonnimada la qaatay ninkii yidhi waraan wax hubsanno annagu ahaa ninkiina yidhi hubsanmayna xamarna geeyana iyagu ahaa marka maanta inayna yidhaahdaan xog baanu igu soo celinaynaa wax soconaya ma aha marka fariimahaas oo dhan insha allah way gaari doonaan dadkeena أنا قاعد دالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.